marka maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ayaga ah inaanu doonno waxaygi oo xaq ah oo waxaan la doonayno laakiin dadka aan la sinnaano oo qof wuu xaq u leeyahay inuu helo dhiig cusubna oo loo baahay xaqayga waan doonayna waliba gaar ahaan dhalinyarta garxajis waa la ilaaway aad baan u hambalyeynaya u salaamaya maadaama ay fikirkoodii keeneen maadaama yacni waxay dareensan yihiin ay maanta ka hadlayaan horena uga hadlayaan si shil laga hoos qaad waayay aad baan u hambalyeynayaa waxa weeyaan waxa idinku doonataan mooyaane waxa la idin siinayaa ma jiro waxa la idin siinayaa ma jiro sidii u heleydeen falowgeed oo qabataan oo kow ka bilowdaan oo laba ka bilowdaan oo saddex ka bilowdaan oo 10 noqotaan oo 20 noqotaan oo 30 noqotaan waxa xaq u leedihiin marka waa heleysaan marka idinka gunaato hase yeeshee waxba idin siin mayso sabantaash ku widi saaray reer 13 qof oo nin kuuliye ka shaqo tagay reer 13 qof oo 9 qof min saddex mushaar qaataan ba hargeysa ku wada nool oo wax jiro oo dhaba insha Allah ta'ala waxaan sugayaa waqti yoom al-ayaam adii wax ka bedelayda cadaaladda sugilayd sax ka dhigilayd inaynu helaha seeshay inta ka horeyso waan idinku hambalyeynaya arrinka barnaamijka agasheen dhalinyaro ahaan waxa weeye ka run sheega ka niyad jabina ka daalina doonta wax xaq u leedihiin aad iyo aad baan idin salaamay muxuu ahay kastamadoo dhammaan dhaqaalaha waddanka reer kasta bartii joogaan saamigooda helaan annagu iska daayay madaarka maxamed muxuu ahaa madaarkaas iyo degmada maxamed ay ku yaala wax alla waxaan ku leenahay ma jirto marka waxaan leenahay oo niyo annagu maanu garan waayin ma aha dad garan waayay in wax uga dhacsadaan waxay ku doonaynaa aqoon la'aana ma hayso maanta dadka dhalinyarada jaamacad ka wada baxay wadad wada digriya dad wada mastara weeyaan marka waxayga aqoon la'aana ma hayso awood la'aana ma hayso oo waxaan ku ri Itaaliyaan lama dhigin laakiin waxaan doonaynaa annagu waxayga sidii waxaan ku ri xeer ahaa inaan ku helo oo bilaa tawfiiq qodobada ka saarna insha Allah qodobada shir ka soo baxay saxaafadeedkana insha Allah waan idin akhrin doonaa maanta waxaan ka hadlaynaa waxaygi oo xaq helo maanta waxaan halkan isugu nimid annagoo ah dhalinyarta garxajis galbeed xaafadaha maxamuud haybe iyo maxamed mooge shir saxaafadeedkan oo ujeedadiisu ahayd 30 sano ee u dambeeyay Soomaaliland oo janjeer ku jiray taas oo aan baaq badan uga dirnay xukuumadda haatan talada haysa sida aawadeed wad wada ogsoontihiin ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliland tusaale ahaan sida dekada berbera waxa 9% maamul iyo shaqaalaba gacanta ku haya dhalinyarta deegaanka berbera kastamka galbeedka ee Soomaaliland waxa 9% ka shaqeeya dhalinyarada deegaanka Gabiley wakaalada biyaha ee caasimadda aanu ku dhalanay waxa 9% maamul iyo shaqaalaba gacanta ku haya dhalinyarada deegaanka wakaaladu ku taalo 80% dhammaan wasaaradaha dalka waxa shaqaale ka noqday dhalinyaradii aan magaalada ku wada dhalanay ee 26 Juun iyo Koodbuur dhammaan NGO-yada iyo hay'adaha dawliga waxa nasiib u yeeshay dhalinyaro gaar ah oo aanu ku wada dhalanay caasimadda Hargeysa dhammaan scholarship-badii dibadda iyo gudahaba waxay noqdeen qaar si gaar ah loogu xidho dhalinyaro aanu ka wada dhalanay caasimadda Hargeysa markaanu aragnay xukuumadda haatan talada gacanta ku haysa sida ay uga dhago fureysatay baaqii aanu 4 sano u direynay ee sinaan iyo cadaalad guud ahaa beesha garxajis inay dhalinyartoodu hesho sinaan iyo cadaaladda oo ay ka qayb qaataan mashruucyada waddanka ka socda markaanu garwaaqsanay horjoogo cumaamad xidhani inaanu dantiisa shakhsiga shacabka nin odaya oo cumaamad sita oo intuu madaxweynaha ugu tago isagoo afkeeda ku hadlaya inuu soo qaato laaluush ama mushaar dabadeed annagana nagu dajiyo waddanku uu hagaagaya iyo niyaddeena loo dhisade dabadeed annagana mashaariicdeedii cid kale ay cunto dee taa waartaanu diidanahay markaanu aragnay in wax dawlad sheegta ama gaari GT aanu xaafadda u soo hoyan maxamuud haybe maxamed mooga toona 4 gaari kama badna GT-gu dawladdu waxay u hoyataa daanta inta yara soo hadhayna dhinacaad kale u hoyataa markaanu aragnay 44 milyan oo madaarka Hargeysa sanadkii miisaaniyadiisu yahay oo soo xareeyo airportku markaanu aragnay ilaha dhaqaale ee deegaankayga ay yihiin heer qaran ilaha dhaqaale ee deegaanada kalena ay yihiin heer qoys marka madaarkii sayladii 12 milyan sanadkii laga xareeyo madaarkii 44 milyan soo xareeya oo dollar taayadu waxay noqotay wax qarankooda leeyahay
mashaariica kalena waxay noqdeen wax reer leeyihiin de miisaaniyadeedii madaarkii xaafadeeda ku yaalay maadaama 40 milyan inamadiina ay bila amal ka yihiin la oranayna miisaaniyadaas waa miisaaniyad qaran oo dadku wada leeyihiin taanu ka hadlayna waa taa waxaanu go'aan ku gaadhnay inaan isku tashanno codkayga oo midaysan iyo isbedelka wadanka ka muuqda inaanu ka qayb qaadanno waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu ku tashanno oo codkayga oo midaysan aanu isbedelka kaga qayb qaadanno oo aanan cid dambe iyo oday dambe maamad noo soo xidha iyo cid dambe been noo sheegta iyo cid dambe tiraado wadanku uu hagaagaya iyo cid dambe tiraado 4 sano dambe ama 5 sano dambe san ku sii jira aanan waxba ka dhageysanahayn marka codkaygaan ugu hiilinayna hadii la yiraahdo isbedelka cid aan halkan ka caayna ma jirto dawlad iyo qabiil iyo xisbi midna ma caayno danaha dhalinyarta garxajiis waliba galbeedka magaalada Hargeysa ah in dantoodii la ilaaway cid ka shaqaysaanay danahoodii jirin saadaraadii bay nagu kaliftay inaan anagoo dhalinyartii aanu hadallo maadaama suldaan aanu noo hadlayn aanu caaqil noo hadlayn aanu wasiir noo hadlayn de balbaaqaygaasina dhalinyarta kale annagana la midka ama qolo kala ahaadaan ama garxajisa ahaadaan inay iyaguna toosaan inay mashruuc wadanku sidoo u socda ay arkaan inay siyaasadda arkaan inay isbedelka nala raacaan baan rabnaa intaas aan ku soo gabagabeynaya insha Allah وطني كرادينتي وما زكاليا